xiisa leh joogtaan waxaad ku soo dhawaataa muuqaal cusub kaas oo aan ku eegi doono 2026 sidoo kale filmada taxanaha ah kuwaas oo qayb labaad iyo qaybtooda koowaad hor loo daawaday qaarna qayb koowaad laga daawado qayb labaad la rajeynayo ayaa warbixintan kugu soo gudbina liiskaas filmo dhowr ah oo ku jira ugu hore filmka Tiger 3 bir ay Hasina Dilruba iyo filmooyin kaleba waxaana sidoo kalena uu yahay mid markaan filayo in sanadkan uu wacdo dhigaan filmadas qaybaha tiyaatarada 2023 ayaa wuxuu noqon doonaa sanad aan ku saabsan oo kaliya in la daawado filmada dib loogu sameeyo kuwaas oo koonfurta oo Bollywoodka dib u sameeyaan ama koonfurta dhexdeeda oo soo kale film kale koonfura dib u sameeyaan soo kale waxa la daawan doonaa filmo xiiso leh kuwaas oo taxanooyin ah hadaba liiskaas filmada ku jira ayaan isla eegi doonaa filmka koowaad waa Tiger 3 qayb saddexaad ee taxanaha filmka Salman Khan iyo Katrina Kaif ay wuxuu mid tiyaatarada saar doon Diwaaliga 2023 sanadkan ku guda jirno taageerayaashiisa ay waxay ku markaan aad u xiisanay in ay daawadaan taxanaha ee filmka daraamaha ee Tiger 3 kuwaas oo raba in lagu soo fasaxo qaybaha tiyaatarada filmka labaad ee liis ku jira filmka Bir ay Hasina Dilruba waxay dhawaan markay tabsibaano soo dhigtay kaartada filmkeeda xiga ee Bir ay Hasina Dilruba kaas oo yahay film taxanaha ee Hasina Dilruba kaas oo kala soo muuqday Jalaaga Fikran Timase liiska saddexaad filmka ku jira waa filmka Bonnie Silfen Part 2 waa filmada ugu sareeya kuwaas oo aad kala wada sugayo sanadda 2013 ee film taxanaha kaas oo director-ka yahay Mani Ratnam filmkaas ayaa qaybta koowaad wuxuu ahaa mid xiiso leh qaybta labaad filmkan wuxuu yahay in tiyaatar lagu soo fasaxo September ee sanadkan aan ku guda jirno wuxuu sidoo kale noqonayaa mid dadka ay sugi laayeen soo kale isku deji laayeen filmkaas inay sugaan liiska soo kale filmada taxanaha ee sanadkan la daawan doono waxaa kamid ah filmka Dream Girl 2 Ayushmann Khurrana iyo soo kale banda filmkooda Dream Girl 2 ayaa wuxuu mid laga filanay in la soo fasaxo bisha June ee sanadkan muuqaalka kooban filmkaas ayaa la soo fasaxay waxaana taageerayaasha iyo ku markan aad u xiiseenayo waxaana qaybta koowaad filmka oo ahaa mid shactara sidoo kalena waxa laga filan karaa qaybta labaad islamada in oo shactaradaas kale oo la yimaado filmka liiska filmada kale waxaa ku jira taxanaha Hindian 2 Kamal Hassan Hindian 2 filmka oo director-ka yahay Shankar ay waxa la filanaa in la daawado sanadkan waxaana filmkan uu yahay mid xiisiisa oo sareeya asaguna la soo fasaxo doono bisha October ee sanadan 2023 filmada kale waxaa kamid ah filmka Gadar 2 sanadooyin kadib ayaa Sunny Deol iyo soo kale Misha Patel waxa lagu arki doonaa in dib ugu soo laabtaan si wada jira filmkooda Gadar 2 kaas oo lagu wado in la daawado 11 Agoosto ee 2023 liiskan waxa ugu dambeeyay sanadada filmada taxanaha ee la daawan doono filmka Oh My God 2 Akshay Kumar filmkiisa Oh My God 2 ayaa waxa laga filanaa in la daawado 2023 qaybta koowaad filmkaas ayaa soo kale waxa kala soo muuqda Akshay Kumar Jalaaga Paresh Rawal kuwaas oo dadka aad u wada heleen taageerayaasha markan waxay sugi laayeen in filmkaas qaybtiisa labaad ay daawadaan inkastoo qaybta koowaad filmka ay dhibaatooyin dhaxda uu ka galay intaan ku soo xirnay muuqaalkan aan ku eegayna filmada sanadkan 2023 la daawan doono kuwada taxanaha oo qaarkood qaybta laga sameeyo doono qaar labaad qaybtooda labaad laga sameeyo doono habuu badnaatay in filmada intooda badan qaybta labaad laga sameeyo doono oo Hindi iyo koonfurta isku jiraan hadda warbixinta ka heshaan